waxaa si habsami leh u soconaya wareegga 18aad ee barnaamijka isxilqaan oo ah dalkaaga dib u dhiso oo ay ka qayb qaadanayaan shaqaalaha wasaaradaha dawladda Soomaaliya kaasi oo dib u dhis iyo dayactir looga sameeyay xarumo muhiim ah waxaana barnaamijka isxilqaan uu qayb weyn ka qaatay horumarka bilic soo celinta caasimada magaalada Muqdisho shaqaalaha rayidka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu qayb qaateen wareeggii 18aad ee howlaha isxilqaan ee lagu dhisay xarunta maktabadda qaranka oo ay ka socoto howlo dib u dhis iyo dayactir qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijka isxilqaan iyo sida ay ugu qayb qaadanayaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayagoo gudanayo waajibaadkooda shaqo ayaa isla markaana waxay soo aadeen barnaamijka isxilqaan waxaana maanta ay joogaan maktabadda qaranka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa wareeggii 18aad ee ka soo qayb galeen oo barnaamijka isxilqaan halkan joogno hadda aan ka muuqana waxa waaye maktabadda qaranka oo ah il muhiim u ah waxbarashada iyo tayeynta cilmiga Soomaalida marka wasaaradda warfaafinta shaqaalaheeda ayagoo shaqadooda gaarka haysto ay haddana waxay qabtaan howlaha isxilqaan raxiim anigoo magacaygu saddexan yahay Cabdiqaadir Cabdullaahi Ibraahin Catoosh kana mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta maanta waxaa joognaa maktabadda qaranka wareegga 18aad ee isxilqaan runtii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waxaa farxad u ah inay ka qayb qaateen barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ugu talagalay shaqaalaha dawladda inay isxilqaan ay ku dhistaan goobaha muhiimka ah magacaygu waa Cabsan Kus Xasan waxaan ka socdaa wasaaradda warfaafinta waan sharaf ay tahay in markii 18aad aan qayb ka noqdo barnaamijka isxilqaan sharafna ay tahay inaan qayb ka dhiso taariikhaha qayb ka mid ah taariikhaha waddanka Soomaaliya sida tiyaatarka qaranka madbacadda sidoo kale hooyooyinkana qaybaan ka soo noqday isku duwaha barnaamijka isxilqaan ee shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ismaaciil Macalin Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay doorka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada howlaha isxilqaan ee lagu dhisayo dalka maanta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta kaltankoodii ayaan saas ku yimaadeen runtii waxaa farxad noo ah marka inay mar walba ay noo yimaadaan kaltankoodan ay ku yimaadaan shaqadii la yaqaanana ay ka qabtaan isxilqaan cududooda iyo xoogooda ka sokow waxay ku bixiyaan codkooda ayay ku bixiyaan isxilqaan maalin walba waxaa nala jooga tiim wasaaradda warfaafinta waxaan uga mahad celinaynaa madaxda iyo agaasimayaasha kale ee wasaaradda warfaafinta dhammaantoodba waxaan uga mahad celinaynaa sida sharafta loo qiimaha badan oo maalinta isxilqaan ay bilaabeen ilaa maalinka maanta ay u baahinayaan maalin walbana ay noogu soo diraan halkan wariyaal caalami ah oo runtii aan jecelnahay oo barnaamijka si fiican u daadihiya oo sharaf weyn ku leh barnaamijka isxilqaan ayaa waxaa lagu soo dhisay xarumo muhiim ah sida tiyaatarka qaranka maktabadda qaranka madxafka qaranka xarumo kale oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho